kani waa xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u taagan sidii uu uga miro dhalin lahaa hawlihiisa shaqo ee uu hayo bulshada ee ah sidii uu u gaarsiin lahaa adeegga dhanka biyaha nadiifta ah guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka iyadoo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay siisay biyaha ahmiyad gaar ah isla markaana sanadkan 2007 la laabay si xoojinta qorshaha biyaha loona qaatay koobaad labaad saddexaad ilaa shanaad si looga haqabtiro bulshada deegaanka haraadka ayaa haddaba xafiiska waxa uu u diray agabka tuubooyinka ee loo isticmaalo mashaariicaha biyagelinta tuulooyinka kala ah Burqayar iyo Higlaalo Biir ee ka tirsan degmada Dhanaan ee gobolka Shabeelle halkaas oo uu xafiisku ka wado mashaariic biyagelin ah kuwaas oo ay ka faa'iideysanayaan bulshada ku dhaqan tuulooyinkan agabkan uu yahay mid fududeynaya habka biyagelinta ee ka faa'iideysiga bulshooyinkan ku kala dhaqan tuulooyinkan waxaana nooga warbixiyay mashaariicaha biyagelinta ah ee uu xafiisku ka fulinayo tuulooyinkan iyo noocyada ay ka kooban yihiinba wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdixaliim Axmed Ismaaciil mashaariicda haddaan idin faahfaahiyo waxay ka kooban yihiin mashruuca Higlaalo Biir wuxuu ka kooban yahay dhismaha 100 mitir reservoir 100 mitir cubic reservoir qaadaya biyaha dhismaha 9 dar dhismaha water point-yada oo 7 ah leemasha biyaha ama pipeline biyaha qaadaya mainline-ku waa 4 kilomitir yaa la soo daadinaya sidoo kale distribution-kuna waa 220 mitir waa dhismaha haan weyn oo elevated reservoir 75 mitir cubic qaadaysa 4 dar iyo 4 water point sidoo kale leemasha biyaha mainline-ka waa 6 kilomitir distribution-kuna waa 280 mitir marka tuumbooyinkan waa kuwii la gelinayay biyagelinta waxaana weeyaan shaqooyinkan dhammaan way dhamaadeen waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay idhaaho dalba waqti dhow gudihii inay adeegga ummadda siiyaan baan rajaynaynaa injineer Haajir Qaliinle Mursal waa la taliyaha xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee heer deegaan waxa uu sharaxaad ka bixinayaa agabkan loo isticmaalo biyagelinta ay u direen tuulooyinkan ay ka wadaan mashaariicaha biyagelinta isagoo sidoo kale sharaxaad ka bixinaya dadaalada xafiiska uu ugu jiro sidii uga haqabtiri lahaa bulshada ku dhaqan deegaanka adeegga dhanka biyaha nadiifta ah haddaba xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha wuxuu shalay diyaariyay 5 gaari oo ku raran tuubooyinka casriga si looga xaqabtiro baahida biyaha goobaha Burqayar iyo Higlaalo Biir ka jira shacabka ku nool labadan qabale Burqayar iyo Higlaalo Biir in ay xafidaan ilaaliyaan haddaba xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ah mid dadaal ballaaran ugu jira sidii uga jawaabi lahaa adeegga horumarineed ee lama huraanka u ah nolosha aadamaha haday ahaan lahayd dayactirka ceelasha biyaha deegaanka bilaabida iyo fulinta mashaariic kale ee qodista ceel biyoodyo ay ka faa'iideystaan bulshada iyo waliba soo gabagabaynta mashaariicaha haatan socda ee uu xafiisku gacanta ku hayo